ابو سناف يعني ابو سناف يعني رحمة الله على أمة أبو سناف يعني waxaan rabaa intaanu gudaha u sii gelin muuqaalkan oo dhammaystiran aan ku tusin inaan kuu sharaxo daqiiqado yar oo kooban dhacdadan halka ay ka dhacday iyo sidee u dhacday iyo sababta ka dambeysaba waxaa ku jirta sheeko haddii aan kuu sheego aad la yaabi doontid adiga ku dhaadan aadan dooran lahayn in sheekada noocaas aad doorbidid inta aad bannaanka xuriyad ku joogi lahayd horta marka hore waxaan ku bari doonaa wiilkan dhalinyarada ah ee ciidamada booliiska dalka Austria gacanta ku dhigeen magaalo lagu magacaabo Salzburg oo ku taala wadanka Austria caasimadiisan u jirta wax ka yar 3 saacadood ayay sheekadan ka dhacaysaa wiilkan dhalinyarada ah wiilkan kale ayuu dilay sawirkiisa eeg marxuumka waa ninkan waxa lagu magacaabaa Hussein wuxuu ku magac dheer yahay marka la joogo dalkaas Abo laakiin kan wax dilay isagu waxa lagu magacaabaa حين oo dilaaga ah wuxuu ka soo jeedaa gobolada waqooyi ee dalka Hussein oo marxuumka ah oo la dilayna wuxuu ka soo jeedaa koonfurta Soomaaliya waxa raba marka sheekada dilaaga inaan wax yar kula wadaago intaan gudaha u sii galin marka waxaan ka codsanaa muuqaalka inaan la qabatid oo meel fog aad gaarsiisid oo aad sheergareysid si sheekadeena dadku ay wacyi gelin ugu noqoto dhalinyarada Soomaaliyeed ee tooreyda isku dilaysa marka la joogo Yurubna in laga wacyigeliyo maskaxiyan iyagoo markaa falalka ay geystaan oo dhanba marka la fiiriyo kuwa dilayaasha ah maskaxiyan inaanu caafimaadkooda wanaagsaneyn dilaaga sheekadiisa ayaa raba marka inaan ku hormaro sheekadan waxay dhacday xalay booliiska ayaa dabagal ku sameeyay ugu dambeynna waa la soo qabtay waa maxay marka sababta dilkan uu u geystay xiin oo dilaaga ah in ka badan 3 sano ayuu xabsi ku jiray dabadeedna waxa uu dhamaaday dambigii oo galay ciqaabtiisa waa la soo daayay isagoo dhan ma aaminaysa maalmo ayuu joogaa banaanka dabadeedna wuxuu go'aansaday inuu wax dilo waa maxay marka sababta inuu wax dilo ku kaliftay si uu xabsiga dib ugu laabto sheekadan waxa ka soo xigana dhalinyaro Soomaaliyeed oo muuqaalkan ila wadaagtay kuna sugan dalka Austria halka ay dhacdada ka dhacdayna ku sugan qayb kamida sawiya xabsiga uu galay inuu daba socoto dhacdadan qayb ayaa ila wadaagtay qaybta kale oo aan raba sheekadooda inaan idin la wadaago cajiibka ah marka wiilkan marka hore isagu waa sharci la'aan marka la joogo Yurub dhalinyarada Soomaaliyeedna sharci la'aanta qaarkood ay matqaan soo wajahdo qaar waxay bilaabaan isticmaalka balwadaha kala duwan nooc walba ahaato taasi ayaa mararka qaar marka sabab ka dhigayso qofka waxaanu isaga u qalmin inuu sameeyo tusaale inuu waxado iyo inuu wax dilo waxay u noqonaysaa wax iska caadi ah sababtoo ah waa in inta badan qofka muqaadaraad isticmaalayo dabadeedna maskaxdiisa aan control karin sheekada xiin marka xabsi ayuu galay dabadeed waa la soo daayay sidaan soo xiganayo markii la soo daayay kadib magaaladii iyo banaankii isagoo sharci la'aan ayuu noolaan waayay markii nolosha adkaatayna marka la joogo Yurub qaybo kamid ah xabsideeda hadda waa sida hoteelada Muqdisho kuwa 5 star-ka ugu fiican oo kale way ka sii fiican yihiin marka si loo eego xabsida qaybo kamid ah wadamada Yurub ninkan waxa la sheegay marka inuu waayay meel wax ka cuno meel seexdo meel ku nafiso meel ku nasto taas ayaa marka sabab ka dhigtay ayaa la lahay inuu wax dilo si uu dib ugu laabto xabsiga uu ka soo baxay xabsigu wuxuu ku haystay caafimaad dhakhtar gooni ah raashin diyaarsan jiif wanaagsan iyo marka halka lagu ma arki karo ciqaab qofka xabsiga uu ku nici karaba oo qofka homeless-ka ama qofka balwada dilootay ee hadii banaanka uu soo baxo aan haysan doonin meel dabada uu la galo in noloshiisa uu ka sii wato qayb kamid ah marka sharci la'aanta marka la joogo qaaradda Yurub dhalinyarada Soomaaliyeed ee soo wajahdo waliba sanado badan ee sharci la'aantu ahaadaan bilaabaan muqaadaraadka kala duwan taasi waxay sabab u noqonaysaa marka in sidaan oo kale dhalinyaradu ay doortaanba inay dilaan noqdaan dabadeedna xabsiyada ay galaan sheekadan waa mid ugu hadal heenta badan marka la joogo qaaradda Yurub ka sii gaar ahaan waliba wadamada Netherlands Germany Austria iyo wadanka Switzerland maadaama iyagu hal dhinac isla wada yihiin
waa mid ka mid ah sheekooyinka ka dhacay Yurub oo aan rabay inaan kula wadaago muuqaalkan waxa ka codsanaa inaan la wadaagto saaxiibadaada kale mahadsanideen